xafladda furo ay soo qaban qaabisay jaaliyadda Banaadir isla markaana ay ka soo qayb galeen dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Western Cape ayaa xalay ka dhacday hotelka Kiptonia ee ku yaala magaalo xeebeedka Kipton. kulankani ayaa waxaa looga arinsanaya sidii loo sameyn lahaa dhaqaale ururin loo sameeyo safaaradda cusub ee Soomaaliya ku yeelan doonto South Africa, iyadoo kulankani ay qodbooyin kala duwan ka soo jeediyeen ka soo qaybgalayaasha munaasabadani. intii munaasabadani ay socotay ayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxay isku raaceen in la dhiso guddi ganacsato ah oo dhaqaale ururin u sameeyo safaaradda cusub. kulankani kadib ayaa TV-gan caalamiga Universal oo goobta lagu casuumay oo mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha munaasabadani. waxaan ka mahadcelinaynaa sida aad nooga aqbasheen goosha soo gelitaankeeda. intaa wixii ka dheerna waxaan aqbaladu yeeli doonaa haddii aan yiraahdo Soomaalidu uu istiraado ayaan annagana diyaar naga ah waasta loo sheegay. shirkii uu noo dhamaaday sidii uu wanaag banada ayuu noo dhamaaday. waa arrin aad iyo aad u muhiim ah ummadda Soomaaliyeed oo isugu timid sidii safaaraddeeda ay u dhisan lahayd iyo horumarkeeda iyo barwaaqada u gaari lahayd. yaa soo qaban qaabisay shirka waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Banaadir ayaa soo qaban qaabisay waana ku guuleysatay shirkii. shirada dambana haddii ilaahay way u balansan tahay waxaana jaaliyadda Banaadir diyaar u tahay horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo safaaradda dhisideed. aad baan ugu faraxsanahay caawiyaashii iyo raggii oo dhan reer Kipton meesha isugu yimaadaan iyagoo aad isu jecel arrintii safaaraddii iyo howlihiina maaragta waa la bilaabayaa baa la yiri aad bayna ugu fiican tahay sida hadda aan dareemayana waa bilaaw wanaagsan waana arrin fiican ilaahayna tawfiiqda ina siiyo ay ka haalin noqdaan. waxaan leenahay raalli ahaada walaalayaal mar labaad ayaan idin mahadcelinayaa sida wanaagsan oo aad nagula soo qayb gashay. si kastaba ahaatee kulamada looga arinsanayo dhismaha safaaradda cusub ee Soomaaliya ayaa ku soo badanayo magaalooyinka wadankani Koonfur Afrika. kulankani oo ahaa mid siyaasadeed loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kipton ee wadankani Koonfur Afrika ayaa ku soo gabagaboobay jawigii loogu talagalay. Maciil Cabdulla Sabriye, Universal TV, Kipton.